iyadoo lagu guda jiro xilli roobaadka dayrta isla markaana ay qaybo ka mid ah waddanka ka da'een roobab lixaadiyey ayaa maayar ku-xigeenka degmada Xudun Cabdinaasir Cabdulqaadir Sheekh Cabdi Guure Qoob waxa uu dadweynaha reer Xudun ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nadaafadda iyo bilicda magaalada xilli roobaadka isagoo oo kormeeray meelihii hore looga nadiifiyey qashinka. Alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. halkan aanu joognaa waa degmada Xudun anigoo ah Cabdicasiis Cawil Caateeye oo ay la taagan yihiin maamulkii degmada qayb ka mid ah maayir ku-xigeenkii xubnihii baarlamaanka ilaahay baa mahad marka hore iska leh ilaahay baanu mahadinaynaa alxamdulillahi rabbil aalamiin. mar labaad waxaanu taagannahay halkii qashinku ahaan jiray ee laga guray qashinka ay dawladda hoose nadiifisay oo saaka jawigeedu bedelan yahay meeshii oo dooxa yar u soo ekaatay oo dhiri ka baxday beri dhaweydna laba dhexmari jirin ayaanu saaka taagannahay hadda ilaahay baa iska leh fududeeyay noo fududeeyay. waxaan marka ugu baaqaynaa degmada Xudun dadweynaha dhammaantii inay magaalada nadiifiyaan goobtana aan wax qashina oo dambe lagu soo celin waad aragtaan faa'iidadeedii xitaa xoolaha ayaa daaqaya magaalada jooga ayaa halkan ku noolaanaya indhihiina macallina meeshaas ku daafad aan la mari karin hareeraheeda way ahayd saakana way quruxdeeda waad aragtaan. waxaan marka ugu baaqayaa dhammaan shacabka reer Xudun hareeraha magaalada iyo meelaha biyo fadhiisiga iyo meelaha qashinka in laga guro oo dawladda hoose lala shaqeeyo si ay inoo ku noqoto magaalo bilic. wasiidoodaygu Riyaad Cabdicasiis sheegay dhulkan waxay ahayd dadka reer Xudun oo garanaya xaafadan daantani meeshan ugu qashinka badan bay ahayd saakana waa cagaar alxamdulillah waxaana mahadda iska leh ilaahay iyo dawladda hoose iyo dadweynaha degmada Xudun waliba dadka xaafadan degan aad bay uga shaqeeyaan nadaafadda sida iga muuqatana wixii laga guray didamba waxumay dhigin marka waxaan leeyahay dhulka loo qashinka laga qaadayna waa jiraanay magaaladu sidoo hore waa dhaantaa hadeer dhulkoo dhan wada green bay noqdeen iyo wada dooxo marka waxaan dadweynaha aan u sheegayaa in ay ilaaliyaan nadaafadda oo dhulka hore laga gurayna ay ka ilaaliyaan. Salaamu alaykum ashraful mursaliin. halkan waxaan ka salaamayaa odayaasha goobtan iyo bahda saxaafadda waxaan baaq u dirayaa marka hore horta waxaan salaamayaa bulshooyinka reer Xudun sida wanaagsan qiimaha leh oo dhulkii qashinka ahaan jiray oo qashinka uga joojiyeen waliba qaybtan xagga dooxada xigta mooska halkii kidaafada ahaan jirtay oo qashinka ahaan jiray damaata weyn aragnaa ومشى حوله ضاغيان ونظيفتها وبرواقضها وحانو باغيا بالشدة نظافده ونرش كواد وانا الدينيا هدان نظافده لوضا إلالين وليبا حل الروبات كوحيالا بدن باكر رشا أبارحهم بين الصومبرنا يستبتشوغا إلهي رحمة بينو شوي هدي أن نظافده لوضا إلالين ونول بقف والبقار كيساونا كإلالين عد قارا ما إلالين كرتو maadaama xilli roob ay tahay waxaan rabnaa in nadaafadda oo lala ku qaadno annana aanu kantaroorno gaadiidkii iyo dadkii ka shaqayn jiray oo nadaafadda oo lala lagu qaado meelaha biyuhu gelayaan oo godadka ah oo wasaqda ah oo baabuurtu marayso qof walba gurigiisa hortiisa inuu ka shaqeeyo. Cabdillaahi Maxamed Kaarshe warbaahinta qaranka Xudun.